عقلي مبادئ ما مصالح ما وطنية ما دلشعيل ما ونفتيدا iyo gurigayga aan u quraab tago wax badan baan ka hadlo waxaan ma yasiir ma soconayso maalintaas iyo maalmaha badan aan hadlaayay dadku aragti kale ayay ii arkayeen wixii maanta ayay soo baxeen qodobkaana intaasaan ku dhaafaya saddex arrimood baa meesha yiil Somaliland baanu nahay waa talo Puntland baanu nahay waa talo maamul baanu samaysanaynaa waa talo saddexdaba meesha way ka maqnaayeen sababahay uga maqnaayeen waxay ahayd masaalix shakhsiya dhaqaale aad u fara badan baa Hargeysa ka tegi jiray gacanta Siciid Cabdisalaam bay geli jireen iyo baran garowada waxbaa ka tegi jiray gacanta Siciid Cabdisalaam iyo baran bay geli jiray xanuunkii faraha badnaa baa dadkan kiciyey qodobkaana intaasaan ku dhaafaya moorasante anuu qabiilka ma jecli mandaqada warsangeli ma degana qabaayilo fara badan baa degan qabaayilladaasu talay ma ku leeyihiin haddii taladaas aan loo midaysnayn dhibteeday leedahay waxaan leeyahay bal horta shir qabsada shirkaasi wuxuu yahay maxaa inoo dana haddii aynu nahay dhahar baran laasqoray iyo tuulooyinka haddii taa laga yimaado haddaynu nahay moorasante wixii shirkaa ka soo baxaa waxay noqonayaan wax la garan karo qodobkaana intaasaan ku dhaafaya Puntland muraad ay ka leedahay sanaag ma jirto Cabdilaahi Yuusuf baa muraad ka lahaa intii ka dambaysay muraad kama lahay tukaraq ku quusta dadka degan mandaqada aan ka soo jeedo ee cuqaal leh ee waxgarad leh caatifiyadu waxba tari mayso reer hebelna waxba tari mayso garaadkaanu isxignaa waxba tari mayso suldaan baanu isxignaa waxba tari mayso xaqiiqadii bay timi waa in xaqiiqada la waajahaa oo maxaa lagu waajahaa daacadnimo iyo maxaa inoo dana hadday taasi dhici weydo dhibaato ayaa imanaysa dhibaatadaasina maatay ku dhacaysa intaana intaasaan kaga baxaya xuseen dheere ina maxamed cashuur inda yare iyo kuwa la mid ah warma waxa aad garan weydeen in aad dadkiinnii u tudhaan ma waxaad garan weydeen
inaad mabaadii la timaadaan ma waxaad garan weydeen inaad meel isu raacdaan ma waxaad garan weydeen inaanay maanta shalay ahayn shalayna aanay doraad ahayn qodobkaana intaasaan kaga baxaya wixii dhintay allaha u naxariisto wixii dhaawacana allaha shaafiyo meesha talaa ka maqan meesha waxa ooli jiray tala nin leeyahay tala ummadi leedahay baa ka maqan haddaan taladaa ummadda la helin khasaaruhu waa sii badanaya waxaan ku soo gebagabaynayaa nuux taani ayaan la hadlay nuux taani waa oday aniga agtayda waana odayaashii hore dhiig inuu daato ma rabo in dhibaata dhacdana ma rabo dadkaasi inay tashadaan oo ay tala la yimaadaan oo taladaasi ay tahay miday u dhan yihiin oo nabad ku dhisan oo ciidan farageliyaa aanu jirin oo ciidan ku gardaroodaa aanu jirin baanu ku wada hadalay garawshiiyuu ka dhiibay wixii ka dhacay yube nuux taani waa ku mahadsan yahay aan gebagabeeyo tala nin laa u galgasha 10 nin oo tegay hargeysa waxba tari maayaan 10 tegay garoowe waxba tari maayaan 10 xamar tegay waxba tari maayaan tala nin laa u galgasha ee talaa idiin taal haddaydnaa tashan karayn waa mir subxaan allah dadka qurbaha jooga waxaan leeyahay 30 sannadood kadib waxba tolla ayay tari mayso waxa taraya deganaansho siyaasadeed puntland baanu raacnay waa wax la garan karo somaliland baanu raacnay waa wax la garan karo maamul iyo ciidan baanu samaysanaynaa waa wax la garan karo if iyo aakhira midna ma jiro hor iyo dabadiid tolla ayay siciid cabdisalaam baa suldaana war waxaasi caqli maaha sidaasna mandaqadu ku nabadgeli mayso mandaqada waa laysku haystaa waxaa isku haysta somaliland iyo puntland dad laysku kayn haysta baad tihiin ciidan baad samaysan weydeen dhaqaalaad samaysan weydeen talaad isugu iman weydeen masaalix dala shakhsiye ah baad ka shaqaysanayseen maxaa siciid cabdisalaam xildhibaanada reeraha ka galay waxaan xusuustay maalintuu yidhi ina siciid maxamed geesa laga qaado wasiirka odayna ha laga dhigo wallaahi warqadaa waan hayaa iyo bilaahi yacni ninka caynkaasa inay dugsataan oo tiraadaan waa noo suldaan maaha meeqa sannadood buu hargeysa tegayay muxuu ka keenay meeqa sannadood buu garoowe tegayay muxuu ka keenay xamar buu noogu yimi ina adeerkii buu qoray oo ina abtigii buu qoray oo habarwadaagii buu qoray oo qoyskiisii buu qoray miyaanu dadka suldaanu ahayn waxaani way wax kasta bilow bay leeyihiin waana dhammaanayaan siciid cabdisalaam weeye fidnadu
nimanka ciidamada ah ee Puntland ka soo jeeda qaarkood qaarna ay Somaliland ka soo jeedaan waa fidmada labaad nimanka isimada sheeganaya ee koofiyada sita waa dambiilayaal weeye danta dalka laga taliya danta dalka bay dantaadu ku jirtaa danta ummadda bay dantaadu ku jirtaa reer Yubbe waxaan leeyahay waxaa idiin iman doona Nuux taani waxaa idiin iman doona niman fara badan waxaa loo baahan yahay inaan wixii dhacay aanay dhicin cidda looga baahan yahayna waa maamulka Somaliland idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaydnaan waxba ku tuurtuurin haddii ciidankaasu meesha xoog ku yimi iyo haddii ciidankaasi ay cidi waday oo reeri Yubbuu joogaa waxaan hadalkaygii ku soo gabagabaynayaa war nabad baan rabaa war waxba Somaliland kuma lihi war waxba Puntland kuma lihi waxoo dhan waxa dhaama nabadda waxa oo dhan waxa dhaama nabadda dadkoo nabad hela baa dhaanta ceerigaaba ma geedo inay dib ugu noqoto 1991 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي هيدين كدو نبسدو دونو وركيغا هاو فصشو مراد آن كالي هي مجرتو مبادي دا أساسي هي وان نبض بان ربنا ما تاچوك تودنكا نبض بان ربنا طلان ربنا انت لالي سقوي مادان ربنا إلا يرادو تلوات الشنينا يتلادها لغا عاوية يعني بقول إيو كنتون الريموت بائدين بنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.